maalin maalmaha kamid uu nabigu ku yiri nin ansaariye buu ka yiri inantaada ii guuri aniga markaasuu yiri ninkii ansaarigi ni'amma wa qurratu aynin buu oo nabi allah adiga ayaa ku heli kara buu adiga ayaa ku heli kara markaa buu nabigu anigu mar rabiye waxaan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiino dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaan dabeecadiisa oo dabeecad waxa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka reer madiino dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayn waa lagu sheekaysanaya madiino dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninku nabigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nabi allow adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuthmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonto inantayda xabsa waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonto inantayda xabsa waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabsa uu cuthmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagdaadii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtaha laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay gurijoog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayey adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan inagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo dhuun doona maaha abibakr cumar isagaa u doonto u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xaggeena waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo
waxa la is oran buu isleeyahay war matu cagalu hayaa uu nagu camaynaya may Umar baa socdo Uthman u bandhigay Uthman uu jawaabay Abu Bakar buu u bandhigay Abu Bakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxa soo doonay Xafsa radiyallahu anha Nabi Muhammad baa soo doonay alayhi salaatu wasalaam dadna markaa uu nabigu guursaday markii guurkaasi uu dhamaaday ayaa maalin dambe Umar iyo Abu Bakar baa kulmay Abu Bakar baa hadalka qaato yiri ya Umar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaas uu ha aan kugu hayaa hortaabaan Uthman u bandhigay uu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyay adigana waa ku bandhigay waadiga aamustay haayana imaad oran mayana imaad oran markaas Abu Bakar ku yiri anigu waxaan ogaa Nabi Muhammad oo Xafsa hadal hayaan ogaa markaas sirta nabiga inaan sheegan diidana hadduu nabigu Xafsa uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi ana ka guursan lahaa buu kay saasa marka nabigu ku ogaaday reerkan reer Madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxa uu nabigu ku ogaaday baa la yiri nin kasto ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nabiga u yimaado oran jiray ya rasuulullah gabadhaydii way gaadhay daadii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa ku diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nabigu marka u weydiistay ku yiri inantiina ii dhisa markaasuu nicma wa qurratu aynin ya rasuulullah wa ni'mad isheeduna way ku qabow way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nabigu ku yiri anigu maaha waxa rabee waxaan u rabaa Julaybibna waa ninkan ii soo sheego waa la yaqaan dabiicadiisa markaasuu Julaybib ha u istaagay ninkii inanta hooyadeed ban la soo tashanaya dabaliikaadi markaabuu nabigu hay la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisii u yimiday wuxuu yiri inanteeni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tiri markaasuu rasuulkii Ilaahay ba soo doonay markaa bay tiri ni'ama wa qurratu aynin wa qurratu ayn wallahi wa ni'mad waana ku raaxaysanayna indhahayna ku farxaye waan siinay Nabi Muhammad markaasuu nabigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hada ayuu rabaa markaasuu Julaybiba saasay tiri Julaybib markaasay tiri may Julaybib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waanu diidnay hebel kala soo doonay waanu diidnay Julaybib waa ninka taqaanid adiguna ee magaalada Madiina oo dhan lagu hadal hayay lagu ballamay inaan inanba loo dhisin war Julaybib u dhisamayna qof kale nabigu ha keeno hadalka markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aniga dhageysta ma Nabi Muhammad baad amarkiisa celinaysaan bay ku tiri ma Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam oo aniga ibixiyay oo Julaybib yiri siiya miyaad amarka Nabi Muhammad celinaysaan oo diidaysaan wallahi bay tiri halka uu Nabi Muhammad raaliga uu igala noqday aniguna raali baan ka ahay ibixiya bay ku tiri markaas ay ku tiri islaantii waa run hadalkaasi orodoo nabiga u sheego ku dheh halkaad raaliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raali baan kala noqonay markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi Allah inantii Julaybib waan siinay aro guurkii uu Julaybib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi Allah waa ninkee markaas Julaybib awaya markaas meydkiisa la doondoonay waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh
carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducada nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga alayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yiri awrka ma iibinaysaa ha imisa inta way heshiiyeen markaabuu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinayay waa nin reer baadiya ma garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina wuxuu soo galay awrka inuu iibiyo hogaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaabuu nabigu degdegay maadaama nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaama safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa oo daba bildhaansanaya markaabuu nabigu soo daymooday wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaabuu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi gama iibsan markaabuu nabigu waan heshiinay tamma albay' qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igama iibsan markaabuu nabigu leeyahay war waan ka iibsaday muslimiintii reer madiina oo dhan baa ku soo ururay waa la isku dhageysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nabiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabiga yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nabigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiina soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maraga furaaya markaabuu nabigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tiridda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khusayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khusayme keligii baa ku filan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii boqol baad gaalada qureysheed aad u wadaa markaasay tidhi may kalla xaasha hay wax sir anu nigama sido mee sir baad naga wadaa iyo nigama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysanay oo warkii nebigaan beeninay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba
intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timaheygii tadcanaa ayaa warqad intaa le ka soo saartay warqadii bay nabiga u keeneen sallallahu alayhi wasallam yaa rasuul allah waatan gabadha sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nabigu dhex fadhiya xalaqadu dhageysanaya waa la furay waa la akhriyay risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxa ka waramay marka uu quraysh uga waramaya sirtii nabi maxamed sirtii ciidanka dawladda islaamka sirteedii buu gudbiyay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midabkiisa beddelmay rasuulka halkan umar baa joogo markiiba kacoo yiri yaa rasuul allah ninkan munaafiqay nagu jira ee sirteeni galada u sheegayay ana qoorta ka goynayay ugu fasax buu ka yiri markaa uu nabigu umar u kaadi degdegin ya xaatib labbayk ya rasuul allah saasuu leeyahay labbayk ya rasuul allah sarakac buu ka yiri ustaag sirteena inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal sheeg buu ka yiri wuxuu yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yiri raga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga ma aha ubadkayga iyo reerkayga baa quraysh kaga dhex imiday haddii waxaan is idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegto qurayshta waxay is odhanayaan xaatib inninkuu inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nabi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasun baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan ay yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nabigu aamusay sallallahu alayhi wasallam ila ninkani dambi weyn buu galay sirtii dawladda islaamku gaalada u gudbiyay markaasaa nabigu aamusay isla markii nabigu halkii fadhiya ayaa fi suurati awaa'il suurati al-mumtahin ya ayuha alladhina aamanu la tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawaddah ila aakhir al-aayah suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku cadeeyay inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka muuminiinta ilaahay nabigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay cadeeyay iimaankiisii baa ilaahay cadeeyay iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal muuminiintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaahay cadowgii rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nabigu cumar buu eegay yaa cumar xaatib waa kaasoo qur-aankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankii baa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogeyn ahlalbadri buu ahaa ninkani waa reer beder waa 313 nin ee dagaalka baderigala qayb gashay weeyaan ahlalbadrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi yaa ahla badrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum yaa ahla badrin waxaad doontaan ba sameeya ininka dembigiinni waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka badriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su'ul khaatimo ku dhimani maaye xusnul khaatima iyo ku dhiman doona marka u dambaysa laana maalintaas ay ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yarayd ee gaaladuna ay soo duuleen iyagoona dagaal ku talagelin ayuu nabigu u saaray macrakatu badr aynay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadda bay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi salaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahla albadr fiikum yaa muxamed raggaa dagaalka bader kaala qayb galay agtiina qiimahay ka leeyihiin bal ii sheeg oo halkeed maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu uhi min afdali lmuuminiin muuminiinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi
markaasuu jibriilna yidhi wakadalika miman shahida badran min almalaa'ikati sidaasoo kale annaguna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka badar soo dhaadhacdee nagala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan taqdiir wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ay maa carafuuhu xaqa macrifatihi wamaa cadamuuhu xaqa cadamatihi qadarkii ilaahay uu lahaa manu garan maanta qadarkii nebigeennu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam manu garan laakiin raggaasaa gartay qadarkii rasuulkeenna qadarkii nebi maxamed bay garteen makaanadiisii bay garteen islaamnimada nebigu ku lahaa xijaamad toobin buu nebigu istoobay maalin tashti dhan baa dhiiggii nebiga laga buuxiyey cabdullaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay awal mawluud fi lmadiinati almunawara weeyaan zubayr bnu cawaan baa dhalay hooyadiina waa asmaa binta abi bakar cabdullaahi bnu zubayr buu nebigu u yeedhay dhiiggayga qaad meelaan cidna ku arkayn ku soo aas maxaa loo dhiibay dhiiggii ka baxay jirka nebi maxamed baa loo dhiibay o yihi soo aas sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasuu dadkii intuu iska eegu meel cidlo kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyey tartiibta ma fahmaysaan ya uu soo noqday hayo cabdillaahi bnu zubayrow dhiiggaygii halkeed ku soo qarisay bal ii sheeg markaasuu yihi meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican baa ku soo qariyey buu yihi markaasuu yihi halkee markaasuu yihi calooshayday buui waan cabbay buui dhiiggaagi dhiiggii nebi maxamed dhulka inuu ku shubo waa u diiday saasuu la fadhiistay u cabbay markaasuu yihi walima sharabtahu maxaad u cabtay buu ka yidhi waylun laka min annaasi wawaylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wawaylun linnaasi minka ya bna zubayr cidda aad dagaal ku qaadana way ba'day cidda dagaal kugu soo qaadana way ba'day buu rasuulku ku yidhi